السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa maalinimo Jimcaha markale waxaan idin leeyahay Jimcaha mubaarak meel kasto aad asxaabay naga daawanaysaan taariikhdu waa 3 bisha Juulaay sanadka 2026 haddaba qodobada barnaamijkan idinku hayno waxay noqon doonaan wararkii soo kordhay intaynu kala maqneen. qodobada wararkan idinku hayno waxaa kamid ah Mareykanka oo sheegay inay aad uga walwalayaan Israa'iil inay weerar gaadma ku qaado ay ku disho madaxda wadahadallada u qaabilsan Iiraan. haddaba madaxa wadahadallada Iiraan gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Qaalibaaf ayaa isagu arrinkaasi kulul uga jawaabay isla markiiba iyaguna waxaa war soo saaray jawaab ku socota Mareykanka iyo Israa'iil ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan. haddaba arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Qaalibaaf uu soo dhaweynayo madaxda ka qayb qaadanaysa aaska qaran ee loo sameynayo aayatullaahigii hore oo maanta ka bilowday Tahraan. haddaba wararkaasi iyo xaaladda Tahraan iyo hadalladan Mareykanka iyo jawaabaha wararkii ugu dambeeyaan idinaya qaybaha kalena waxaan idinayaa Israa'iil oo si cad u sheegtay maanta 10 meelood oo ku yaala koonfurta Lubnaan inay weerar ku qaaday iyadoo sheegtay inay beegsanaysay Xisbullah. haddaba tani mar kale ma keeni doontaa in ay Iiraan iyo Israa'iil isfarasaaraan? haddaba wararkaas kuwii ugu waaweynaa ah ayaynu barnaamijkeena labaad maanta oo Jimcaha ku faahfaahinaynaa. waan hubaa inaad ka hesheen macluumaadkii wararkii aanu kusoo gudbinay barnaamijkeenii hore ee saaka. intaan ku jirno wixii akhbaar ay soo kortana waan idinla socodsiin. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan Jimco wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenii labaad maanta oo Jimcaha taariikhduna waa 3 bisha Luulyo sanadka 2026 waxaynu kusoo qaadanaynaa wararkii soo kordhay intaynu kala maqnayn. ugu horreyn waxaynu ka bilaabaynaa iyadoo magaalada Tahraan ee caasimadda dalka Iiraan ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin dhowr dal ka socda si ay uga qayb qaataan munaasabada ducada iyo aaska qaran ee loo sameynayo hogaamiyihii dalkaasi aayatullaahigii hore Cali Khamenei. haddaba waxaa halkaa tegay wafuud kala duwan oo ka socda dowlado. waxaa ka mid ahaa wafuudii halkaa tagtay wafdi sare oo ka socda dalka Shiinaha, wafuud ka socota Ciraaq, kuwo kale oo ka socda dalalka dariska, Taliban wasiirkeedii arrimaha dibadda iyo wafuud fara badan ayaa ka qayb qaadanaysa leeyahay aaska qaran. iyadoo hawsha lagu guda jiro ayaa Mareykanku waxay soo saareen war maanta. waxay leeyihiin waxaynu ka baqaynaa Israa'iil inay weerar gaadma inta Iiraan ku qaado ay ku disho ragga waaweyn ee wada hadalka u qaabilsan xukuumadda Iiraan. raggaas waxaa ka mid ah Qaalibaaf, gudoomiyaha baarlamaanka ah, wasiirka arrimaha dibadda Caraaqji. raggaas ayay waxay leedahay waxaan ka baqaynaa in la dilo. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay, Washington ayaa sheegtay inay baqdin ka qabto qorshaha Israa'iil ee ay ku doonayso inay weerar gaadma ku qaado dadka wada hadallada u qaabilsan Iiraan. wargeyska la yiraahdo New York Times ayaa qoray in mas'uuliyiin Mareykan ah ay markaasi Israa'iil uga baqanayaan qorshe ku saabsan inay disho madaxa wada hadallada u qaabilsan Iiraan. Washington waxay sheegtay in arintani ay khatar badan keeni karto aynu uga digtay Israa'iil inay tallaabo noocaas qaado. haddaba joornaalka la yiraahdo New York Times wuxuu leeyahay waxaa laga baqayaa isku day Israa'iil ay doonayso inay ku khaarijiso gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Mohammad Baqir Qaalibaaf iyo wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi oo iyagu hogaaminaya wada hadallada marka lala galayo Iiraan. marka saakay ahayd markii la yiri aayatullaahi uu ka qayb gali maayo aaska qaran ee loo sameynayo aabihiis. aayatullaahiga hadda jooga Mujtaba kama qayb galayo ammaan dartiis. hadda marka maxaa soo baxaya? Mareykankiya wuxuu leeyahay waxaan ka baqaynaa Israa'iil annagoonan ogeyn inay weerar gaadma qaado oo ay ku qaado Qaalibaaf iyo Caraaqji. marka
isla markiiba marka waxaa ka soo jawaabay sheekadan ninka la yiraahdo Qaalibaaf. haddaba markaan idin tuso Qaalibaaf wuxuu ka hadlay in qorshahan uu yahay qorshe ay isla og yihiin Mareykanka iyo Israa'iil oo loogu hanjabayo laguna cabsi gelinayo isaga iyo dadka wada hadallada u qaabilsan inay ka tanaasulaan mowqifkooda Hormuz. haddaba Qaalibaaf wuxuu yiri uma ogolaan doono Mareykanka inuu farageliyo marinbiyoodka Hormuz. afhayeenka baarlamaanka Iiraan Maxamed Baaqir Qaalibaaf ayaa sheegay intii uu la qaadanayay kulan gudoomiye ku-xigeenka golaha qaranka baarlamaanka dalka Shiinaha oo tacsida u yimid ayaa sheegay in Iiraan aysan marnaba ogolaan doonin Mareykanka inuu farageliyo marinbiyoodka Hormuz. wuxuuna sheegay in arrimaha hanjabaadaha iyo waxyaabaha soo yeeraya ay yihiin kuwo dana kale laga leeyahay. marka ninka la leeyahay Qaalibaaf odagana oday sahlan ma wuxuu leeyahay sheekadu meesha ka socoto waa naqaan annaka nala cabsi gelinaya macnaha Mareykanka wuxuu nagu cabsiinayaa Israa'iil aan ka baqaya inay disho waxaas wax socona ma adeero kaaga tanaasuli mayno marinbiyoodka Hormuz mana soo faragashan kartid afaaraas banaankaad ka joogtaa ninkiina dilaya annaga noo yimaaduli laakiin annaga waa isfahamsanna u leeyahay nimankan waa naqaanaa hebela wax dili rabo anaa ka baqsan iyo waxaynaan ka wada shaqayn meesha ma ka dhacaan u leeyahay laakiin arintan waxay u muuqataa u leeyahay annaga nala ku cabsi gelinaa aniga Caraaqji sorraga ku adkaysanaya manihin heshiiska wixii aan ku heshiinay hal meel mariyo marka nimankaasu annaga waa isnaqaanaa u leeyahay marinbiyoodkan afaariisaas ku soo gelin marka isaga iyo madaxweynaha Bashkiyan iyo rag waaweyn madaxda dalkaas imaanaysa marka soo dhaweynaysa munaasabadaas marka xilliga warkan u jeedinayna wuxuu la kulmayay madaxda baarlamaanka Shiinaha oo halka tacsida u tagay marka hawshaasu halkaas mare haddaba isla markiiba marka waxa iyaguna war soo saaray Mareykanka warkiisa kadib ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay yiraahdeen Qaalibaaf hala dilo ama qof kale hala dilay meeshan wixii ka dhaca waa la yaabi doonaa annagu waa idin sheegnay heegankaas ku jirnaa ilaadan wixina soo weeraro iska dhicinayna haddaba marka aan idin tuso warkii ugu dambeeyay isaguna sheekadan laga qoray haddaba marka waxaa leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen qalad kasta oo laga galo xisaabaadka hadda jira waxay keeni doontaa jawaab aan laga soo waaqsan oo ay bixiyaan Iiraan. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen in ciidankoodu ay markaasi diyaar u yihiin oo ay si weyn ugu diyaar garaysan yihiin iyagoo amarka ka qaadanaya aayatullaahigooda Mujtaba Khamenei inay cid kasta oo xadgudub ku samaysa dalka ay markaasi meel saaraan cid kasta annagoo ciidankeena ilaalada kacaanka Iiraan iyo ciidamada wadanka Iiraan laba ciidan waaye oo military ah midna waxa waaye ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan midna waa ciidanka militariga wadanka Iiraan waa diyaarsan yiraahdeen xadgudub waa kaas hebel la dilay kan yaana la soo aadeen marka waa saasa la isugu hanjabaya waa la cabsi gelinaya waa wax walba la isku sameynaya meeshan wax heshiis leeyahay bijirabaato dhasaasa la isugu booteeraya waayahay dhanka kale wali qaramada midoobay kuma guuleysanin kumanaan dadka ku xaniban maraakiibta dushooda ee ku xaniban maraakiibtoodii iyaguna meesha ku xaniban marinbiyoodka in laga soo daabulo dadka oo ah badmaaxiyiin dalal kala duwan u dhashay markii hawsha xoogaa socotaba waxbaa si noqonay Hormuztan meel inkaaran ay ku noqotay dadkaasu marka way soo qaylinayaan waxay leeyihiin meeshaana la ka saaro haddaba marka wararkii ugu dambeeyay ee arrimahan soo kordhay waxaa leeyahay waxay leeyihiin kumanaan dadka badmaaxiinta ayaa ku xaniban marinbiyoodka Hormuz iyagoo sugaya in la badbaadiyo haddaba kumanaan ayaa waxaa la sheegay
inay halkaa ku xaniban yihiin marinbiyoodka Hormuz iyagoo markaasi dalbanaya ururka badaha caalamiga ah in dadaalada halkaasi laga wado la sii xoojiyo. 11,000 oo ka mid ah dadkaas ayaa waxaa la sheegay in doomahooda ama maraakiibta ay markaa la socdaan ganacsi ay halkaa ku xaniban yihiin, waxaana aada u sii yaraanaya cunnada iyo biyaha iyo waxyaabaha iyo daawooyinka ay isticmaalayaan. marka dadkaas halkaasay ku xaniban yihiin, kumanaan dada waaye oo maraakiibtaas dul saara, daawadii biyihii waxa waa dhammaadeen. qaarkood marka meesha qaabka loo maraayo iyo lacagihii lagu mari lahaa iyo ma jirto. qaarna dee qoladan ay isnacab yihiin iiraaniyiinta waayo goorba shirkado israa'iiliyiina iska leh, way baqayaan inay meesha soo maraan, in nagta laga saar ka baqayaan. marka waxyaabo badana marka isugu jiraan. maalin dhexdaa marka qaramada midoobaa bilowday inay qaar soo marka iyadoo qaar wax yar soo qaadayba haddana sheekadii halkaasay ku xirantay. haddaba qaybta ugu dambaysa ee barnaamijkeena labaad maantoo jimcaha aanu kusoo qaadanayno waxay yihiin qaybaha kale weeyaane. koonfurta Lubnaan, Israa'iil ayaa 10 weerar qaaday maantoo jimcaha, 10 goobood oo markaa ay joogaan Xisbullah sida ay yidhaahdeen. haddaba tallaabooyinkan ma keeni karaan dagaal toosa mar kale haddana inuu dhex maro iyaga iyo Iiraan, maadaama Iiraan ay ku hanjabtay inaan la weerari karin Lubnaan. haddaba waa su-aal taagan oo cabsideeda lahaa la leeyahay. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyey ee sheekadan ku saabsan koonfurta Lubnaan. ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay weerareen 10 goobood oo la sheegay in Xisbullaahi ay lahaayeen koonfurta Lubnaan. haddaba waxaa la sheegay in meelaha la weeraray ay ka mid yihiin deegaano la yidhaahdo Bent Jabiil, wa Beyt Yaaxuun, wa Kooneen oo dhammaantood ku yaala koonfurta Lubnaan. haddaba arrimahan ayaa waxay yimaadeen ay leeyihiin Israa'iiliyiinta inagoo ka jawaabayna kadib markii ciidamadeena ku sugan goobta ay ugu magac dareen goobta amniga ee koonfurta Lubnaan ay markaa khatar la kulmeen habeenkii xalay ahaa kadib markii gaari weyn oo xamuula uu ku soo dhawaaday goobta ay ciidankooda joogeen. haddaba waxaa la sheegay gaarigaasi inay wateen kooxo ka tirsan Xisbullah. marka weeraradan ilaa hadda Xisbullaahi wax jawaaba oo ay ka bixisay ma hayno. marka kolley waa arki doonaa 10 weerar. weeraraduna waxaa lagu qaaday mayse sheegin, ma diyaaradihii waaweyn ay wax ku duqeeyeen, ma drones ku duqeeyeen, ma madaafiic ku duqeeyeen, lama sheegin. inkastoo diyaaradaha waaweyn muddooyinkan la iska baarkimay sidii heshiisyada iyo waxa kan Mareykanka iyo Iiraan ay u galeen, haddii drone ay yihiin lama yaqaan. haddaba barnaamijkii waa naga inta aan mar kale kulmayno.